habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa maanta hadalkaas u sheegay warfideenada dhanka kale oo eedda ka jawaabayana waxa ay yiraahdeen madaxweynihii xilkiisii dhammaaday iyo dawlad iyo xukuumaddiisii xilkuu dhammaaday waxay ka soo horjeesteen in la aado doorasho ujeeddaduna intaasay ahayd waa wasiirka warfaafinta Puntland warbixin dheeraad ah iyo falanqayn aynu ku eegi doonaa wararkeena kalena waxa ka mid ah khubarada waxay ka digaysaa yaraashaha tirada dhalmada dalka Shiinaha inay sababi karto dhibaatooyin dhinaca waayeelkooda ah doorasho ay mucaaradka Jabuuti qaadaceen ayuu markii shanaad u tartamaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle warbixin iyo falanqayn aynu idinkaga haynaa kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay in madaxda Puntland iyo Jubaland aysan diyaar u ahayn dalka ay ka dhacdo doorasho dawladdu waxay sheegtay in wax laga xumaado ay tahay in labada madaxweyne aysan ogolayn in xal laga gaaro khilaafka doorashooyinka Soomaaliya Puntland iyo Jubaland ayaa iyaguna beeniyay eedahaasi waxayna sheegeen in warkaasi uu fajac ku noqday wariyana magaalada Muqdisho Beela Sheegow ayaa warbixintan ku eegaysay shirkan oo ahaa mid ay si weyn beesha caalamka ay u riixaysay ayaa waxa uu ahaa mid ay dadka Soomaaliyeed ee rajo weyn ay ka qabeen xarunta Afisiyoni ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayuu ka bilaabmaday maalinta Sabtida ahayd ee toddobaadkan maanta ayuu dib u furmay kadib 2 maalmood oo hakad uu ku yimaaday dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta giliki dambe sheegtay in shirkan lagu kala kacay isagoo aanay wax natiijo ah aanay ka soo bixin waxa aanay sheegeen in maamulada Puntland iyo Jubaland aanay diyaar u ahayn inay doorashada ay ka soo qayb galaan xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu asaaskeedu yahay 17 Sebtembar iyo isfahamkii 16 Febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn isla magaalada Muqdisho maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa waxa ay ku qabteen shir jaraa'id oo ay si kulul ugu jawaabayaan eedeymaha ay u soo jeedisay dawladda federaalka Soomaaliya maanta oo ay ahayd maalintii ugu rajada roonayd aanu filaynay inay noqoto maalintii la isku raaci lahaa jadwalkii ama qaabkii doorashada loo aadi lahaa jadwalkii laga heshiin lahaa shirku waxa lagu soo xiray oo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ku soo xiray in la soo kala nasto oo la soo kala tashado hase yeeshee عبارك بعدي وحاسوب بحي إنه قبتي شركة رائد ninka ugu magacaaban warfaafinta dawladda xilligeedii dhamaaday ee federaalka ah dube uu leeyahay shirku waa fashilmay shirkan wuxuu ahaa mid daba socday shirar looga hadlayay doorashooyinka oo kol hore soo bilaabmay wuxuuna uu hordhac u ahaa shirweynaha qaran ee doorashooyinka beesha caalamka ayaa xalay madaxda Soomaaliya ku boorisay inay ramadaanka ka hor heshiis wax ku ool ah ay gaaraan khilaafka doorashooyinka ayaa u muuqday mid sii jiitamaya oo gabi ahaanba siyaasadda Soomaaliya ka dhigay mid aan la saadaalin karin Beela Sheegow BBC Muqdisho haddaba waxaa qadka magaalada Dooxa ee dalka Qatar toos hadda ugu jira Professor Afyare Cilmi oo siyaasadda Soomaaliya ka faalooda Professor Afyare marka hore soo dhawow muddo waa darsaysay siyaasadda Soomaaliya waad nala socotay wax badan xoogaan ayaa u tahay warka maanta soo baxay xamar ka soo baxay ma filawaa ay kugu noqday adiga maya runtii filawaa iguma noqon dabcan waan ka mid ahaa inta jecel inuu shirku guuleysto oo hore loo socdo laakiin aniga runtii waxaan maadaama research waxaan ka sameynay 4 report aan hore uga qornay waxaan ii muuqatay yani wax la isku hayaa inay ka culus yihiin doorashada kaliya doorashada hadda waa waxa itemka lagu dirirayo korkiisa laakiin awoodda la isku haystaa waxa kaloo lagu muransan yahay nuxurka dawladnimada Soomaalidu nooca uu noqon doono ma waxani markaad aragto si hoose markaad u sii fiiriso
waa doorasho ma la qabanaa iyo 17 September waxaan waxa waaye waa meelo soka waaye laakiin annaga mar hore 2019 ayay noo soo baxday meeshan power struggle-ka ka jira culayska uu leeyahay ilaa intiina waan ka digaynay waa sheegaynay hadda markii ugu dambeysana runtii waan ka hadlay marka doorashadan waa waxa ugu fudud oo laga gudbi karo laakiin waxa la isku hayo asaaska ah oo nooca state-ka Somali Republic wixii la dhihi jiray meesha ka soo bixi karta taas waaye meesha waxa la isku hayo taana lagama heshiin meeshaan hadda waxa ka muuqata qoladan madaxweynaha iyo dawladdu inay u cararayso extension oo ay rabto ciyow inay baarlamaanka wax intay marsiiso ay samayso qoladan kalena waxay aaminsan tahay wax la yiraahdo fallback option oo ah shanta maamul goboleed unbaa asala ayaga dawlad soo dhisi doona marka labada aragtiyadoodna way kala jirtaa marka runtii aniga igama yaabin oo laakiin haddana dadka jecel inuu shirku guuleystaan ka mid ah waan gartay professor Afyar sidaad sheegtay 2009 warbixinadaas soo saarteen iyo sidaad u jeedeen in ay jirtay awooddo in lagu dagaalamayo marka muwaysan ahayn marka hore in waxaas la xalliyo intaan arrintan kale la aadin muwaysan u jeedin madaxdan halkaas isugu timid arrintaas maya markii qoladan cusub ay meesha timid markiiba waxa u soo baxay waxa meesha yaala iyo sida ay ayagu rabaan inay ku sii joogaan marka waxay istusiyeen nidaamka meesha yaala inuusan ahayn nidaam ayaga waafaqaya dawladda mar walba waxa ka go'need doorasho ay og tahay natiijadeeda inay qabato sidii ay kuwii ay qabatayba ka muuqatay qolyahan kale ee mucaaradkana waxa ka muuqatay nimankan afarta ilaahay wuxuu ka siiyaba inay intay 4 sano ay joogaan ay baxaan marka horeba meesha la iskala qaadayay ayaa aad u kala duwanay marka hadda xagee looga dhaqaaqaya halkan la isku mari la'yahay natiijada shirkii security council-ka hadda ugu dambeeyay ila xogogaala oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in markaa laga hadlayay haddii initiative-kan ama kan ugu dambeeya oo Somali-led process-kan haddii uu guuldareysto inay markaa international community-gu si xoogaa ka xayisan sidii hore ay usoo faragelin doonto oo ay iyagu la wareegi doonaan mediation-ka ama dhaxgalka Soomaalida inta ay dad aan israbin cid xataa international community ka daa cid kastoo la keeno ani hadda maba ogeysa isugu qasbi karto laakiin dareen guud oo hadda waxaa jira ah si waxaan loo yareeyo dhibka ka iman kara in ay qoladaasi ay dhex galaan maadaama hadda ay tahay kuwa ay kulligood ku kalsoon yihiin hadday suurtoobi weyso waxaa dhici karta maamuladan hadda diidanna inay noqdaan xamarna oo buuq noocuu rababa ha ahaado ama protest iyo mudaharaadyo ha noqdo ama mid ka weyn ha noqdo buuq inuu bilowdana waa dhici kartaa laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu faraj furo nimankaanina inay hadda waxaan lagu degdegayo oo la xallin karo inay xoogaa ka waantoogaan kulli anigu intaa baan dhihi lahaa aad baad u mahadsan tahay professor Afyar Cilmi oo magaalada Dooxa dalka Qatar toos ugu jiray mahadsanid professor aad baan tobaneeyo sano Shiinuhu waxa ay ku shaqaynayeen siyaasadda hal ilmo si looga hortago cabsida dawladda ay ka qabtay tirada dadka sii kordhaya sanadkii ugu dambeysay sharciyadaasi waa la qafiifay iyadoo lamaanaha loo ogolaaday inay dhalaan 2 cunug haddaba waxa dadka qubarada ahi ay ka digayaan in dadka da'daha ay sii kordhayaan ayna adkaan doonto in wax laga qabto tirada dadka dhalanaya ee aadka u yar waxaana ay saadaalinayaan in xadaynta carruurta gabi ahaanba ay meesha laga saari doono carruurta Shiinaha waxaa mararka qaar loogu yeeraa boqorradii yaryaraa sababtoo ah waalidka waxaa lagu soo koobay hal ilmo oo kaliya inay dhalaan haddana waxaa la soo saaray sharci sheegaya 2 laakiin dadka intooda badan hal cunug ayaaba ku filan xaqiiqdii waa inaad weydiisaa waalidka hal cunug haysta inay doonayaan xitaa kama aanan fikirin arrintan dareen ahaan iyo dhaqaale ahaanba inaan awoodo waqooyiga bari ee Shiinaha oo dadku ay ku badnaan jireen ayaa iminka dadku ay ku sii yaraanayaan waxaana laga yaabaa inuu noqdo gobolkii ugu horreeyay ee joojiya xadaynta carruurta laakiin taasi ma keeni doonto carruur badan aniga waxaaba hadda igu adag inaan midkan koriyo waxaa wanaagsan inaad xooggaaga hal ilmo isugu geysid ama waxaad dareemaysaa dembi inaadan kulligood daryeeli karin
waxaa isbeddel weyne uu ku yimid aragtidii dadka Shiinaha fac ka fac. jiilka waaweyn oo dhan waxa ay ka soo jeedaan qoysas badan waxaana ay u ahayd arrintaasi mid muhiim u ah nolosha. laakiin jiilka dhalinyarada ah la mid ma ahan, xaqiiqdiina ma doonayaanba in ay dhalaan ilmo badan, mana ahan wax iyaga muhiim u ah. sharciga in hal cunug keliya la dhalo waxaa la dhaqangeliyey 80-aadkii si looga hortago tirada dadka oo sii kordhaysay. markii dambe dadka miyiga iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ayaa loo oggolaanayay carruur badan inay dhalaan. laakiin intooda badan muddo hadda 30 sano ka badan wixii hal cunug ka badsada waa la ganaaxayay. 2021 Shiinuhu waa uu ka duwan yahay kii hore. lamaanayaasha da'da yarina wax kale ayay doonayaan. markaad eegto taariikhda tirada dhalashada, saboolnimada ayaa lala xiriiriyaa dadkaasi faraha badan, sababtuna waa in bini aadan walba uu leeyahay 2 gacmood oo shaqo u baahan. kadibna waxa yimaada barwaaqo, mana ahan muhiim in xilligan carruur badan ay dhalaan. arrin kale waxa ay tahay in dalkan uu soo saaray jiilal qabatimay nolosha qoysaska tiradoodu ay yar tahay, waana ay adkaan doontaa intaasi si degdeg ah lagu bedelo. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook, fadlan raadi BBC News Somali, halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah, wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka. nagala soco BBC Somali Twitter, Instagram iyo YouTube oo hadda aad toos nooga daawanaysaan. weli waxa inoo soo socdo aan qaybta dambe idinkugu hayna doorasho ay mucaaradka Jabuuti qaadaceen ayuu madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle markii shanaad u tartamaya. warbixin iyo falanqayn ayaynu idinkaga haynaa. caawa iyo caalamka ayaad weli daawanaysaan. anigoo Cusmaanna waa idinla socodsiinaya aan idin xusuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. shirkii looga hadlayay doorashada Soomaaliya ee saakay dib uga furmay ayaa
magaalada muqdisho maanta fashilmay iyadoo dhinacyada ay isku eedeeyeen fashilka shirka. dalka Jabuuti jimcaha waxa ay dadweynuhu u dareeri doonaan doorashada madaxweynaha iyadoo madaxweynaha iminka xilka haya Ismaaciil Cumar Geelle uu baadigoobayo in markii shanaad dib loo doorto. doorashadan ayaa waxaa qaadacay xisbiyadii caanka ahaa ee mucaaradka waxaase madaxweynahan 73 jirka ah la tartamaya Zakariya Ismaaciil Faarax oo siyaasadda dhawaan ku soo biiray. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa inoo faahfaahinaya. Jabuuti dal amni ahaan xasiloon balse dhaqaale ahaan liita. xogtii ugu dambeysay ee bangiga adduunka waxay sheegaysaa in ugu yaraan 23% dadku ay ku jiraan saboolnimo daran halka shaqala'aantu ka badan tahay 10%. Soomaaliya oo keliya ayaa ka badan dalalka dhaca bariga Afrika. doorashada jimcaha loo dareerayo waxaa ku baratamaya madaxweyne markii shanaad xilka u tartamaya Ismaaciil Cumar Geelle iyo musharax siyaasadda ku cusub Zakariya Ismaaciil Faarax oo ka socda xisbiga MDEND kadib markii xisbiyada rasmiga ahaa ee mucaaradku ay doorashada qaadaceen. Faarax oo ahaa ganacsada intii aanu siyaasadda soo gelin aad looma aqoon ka hor intii musharaxnimadiisa aanu kaga dhawaaqin Facebooka bishii Janaayo. wixii intaasi ka dambeeyay wuxuu waday ole aan u dhigmin kan dhigiisa u waday. madaxweyne Geelle oo dalka soo maamulayay tan iyo 1999 iyo isbahaysigiisa UNP ayaa ku soo afmeeray ololahoodii doorashada caasimadda kaasi oo ay mucaaradku ugu yeereen mid aan nuxur badan lahayn. gudoomiyaha xisbiga ARD oo isagoo doorashada qaadacay ayaa sidan warbaahinta u sheegay doorashada Jabuuti waa ay macno beeshay inta mas'uuliyiintu iscaleemo saarayaanna waxaa sii kordhiya qatarta foodada iyo xasilooni darrada. codbixinta sanadkan ay ka dhacaysa Jabuuti waxaa qiyaas ahaan ka qayb galaya 200,000 oo codbixiye. Jabuuti waa dal istiraatiiji ah waxaana saldhigyo ciidan ku leh Mareykanka, Faransiiska, Shiinaha iyo Jabaan. dastuurka dalka sida uu qabo doorashadan waxay noqon kartaa markii ugu dambeysay ee madaxweyne Geelle oo 73 jir ah uu ka qayb galo. sanadkii 2010 waxa ka bedel lagu sameeyay dastuurka da'da musharaxiinta madaxweynaha ayaa lagu xadiday 75 sano. dad badan waxa ay sheegayaan in natiijada doorashadan la sii saadaalin karo. haddaba qadka magaalada Paris waxaa si toos ah hadda ugu jira Maxamuud Jaamac oo ah wariye ka tirsan idaacadda codka Jabuuti ee dalka Faransiiska oo idaacad ku taala. Maxamuud soo dhawow waa daawanaysa warbixinteena saadaashana waa la wada og yahay ayaa la leeyahay maxay taasi ka macno tahay? walaal horta waad baadsan tahay saadaasha doorashada Jabuuti uma malaynayo horta maanta inay qofna ka qarsoon tahay. waayo sida aad u soo dhigteen amba sida adduunyada ay ugu muuqataba wax doorasho lagu tilmaami karo run ahaantii way adag tahay Jabuuti maanta in lagu sheegi karo. saadaasha kaliya hatee la sii sheegi karo waxay ahayd imise qof ayaa ka qayb gali karta doorashadan dadka ka qayb galaya imise noqon karaan. taa ayaa keentay maaragtay dawladda Jabuuti inay ta ugu muhiimadda ay siinaysay toddobaadadii dhaweyd ee maaragtay doorashadu ay socotay oo dadka laga lahaa kaararka qaata dadka maaragtay dikadaha loo marayay oo maaragtay makarafoonno waaweyn loo qaatay ambooleta kaararkaba xaafadda loogu geynayay qofkii maaragtay dadka codaynaya xaafadaha lagu geynayay. marka taas baana maanta la garanayn laakiinse xagga kaleeta ee maaragtay cidda ku guulaysanaysa iyo sida ay wax u dhacayaan taa ummadda reer Jabuuti amba adduunyaduba waa la sii wada garan karaya waa la sii saadaalin karaya. waxaa tiri waa la saadaalin karaa oo ummadda iyo adduunka wax ka qarsoon ma laha marka maxay taasi macnaheedu tahay haddaad noo sharaxdo? taasi horta waxay macnaheedu tahay waa waxa weyn Jabuuti waa gol kubadeed oo hoosta ilbaab laga xidhay oo uu nin keli lahaatena kubadda uu haysto uu leeyahay aniga ayaa ila ciyaaraya ilbaabkiina hoosta ka soo xidhay. marka waxa weyn haddaan dhinac kale u dhigo wax mucaarad maaragtay Jabuuti la odhan kara oo ka qayb gali kara doorashooyin ma dhici karto waayo uma furno fadalka maaragtay siyaasadda Jabuuti
dad kaleeto oo maaragtay ku soo sharixi kara amba la looltami kara madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo maanta xisbigan UNP ma jirto waayo fadashii maaragtay doorashada amba siyaasadda Djibouti way xidhan tahay laakiin jaamaco madaxweynaha meel uu ku diidayna ma jirto xisbiyadana iyaga qaadacay marka ma waysan ahayn in doorashada ay socoto haddii iyagu diideen ma taasaa loo joojinaya waxa weeye horta de haddii maaragtay maanta xisbiyada Djibouti ayay u furan tahay inay taa ka hadli karaan laakiinse waxaan kuu sheegi karaa annagu haddaan nahay maaragtay wariyaal ambooleyta wariyaashadu ay Djibouti ka shaqeeyaan waxa muuqata wax hadala maaragtay iyo wax ficil ah marka haddii ficil la eego madasha siyaasadda Djibouti wax furan ma aha oo maaragtay mucaarad u furan ma mucaaradka Djibouti qofka haddii mucaarad lagu tuumo waxa dhacdo horta in wax shaqo la yiraahdo laga ceyrsado oo maaragtay uu shaqo nolol una haysan karin waxa dhici karta maaragtay in uu madasha siyaasadda uu meel ka gali karin waayo waxa la og yahay Djibouti sida ay u dhacaan doorashooyinka kale ka hooseeya kan madaxa iska daayo kuwa kale ka hooseeya say u dhacaan waa madal siyaasadeed Djibouti xoogay xiran tahay maaragtay xorriyadii kale dadkii kale ayaa xiran xorriyadii maaragtay qowlka ayaa xiran oo annaga idile maaragtay saxaafadda ah Djibouti xaq uma lihin inaan ka furan karno raadiyogeyga xaggan jaalin karno xaq uma lihin waan gartay laakiin madaxweyne Geelle muusan wax ka qaban dhaqaalaha iyo dhalinyaradan inuu soo dhaweeyay horta waxa la oran karaa madaxweyne Geelle wuxuu qaban lahaaba waxa maaragtay maanta dhalinyara ay qabsatay ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle yiri dhalinyara ayaa ii yeeratay ayuu yiri markaad indhaha aad ku eegtidne oo maaragtay firista aad saartid Djiboutina waxaad arkaysaa dhalinyaradu inay yihiin kuwa ugu dhibaatooyin badan Djibouti ee dhibaatooyinka ugu badan ay haystaan ha ku ahaato tacliintii ha ku ahaato tayadii beeshay ha ku ahaato maaragtay shaqadii oo shaqa la'aanta dhalinyaradu ay cirka tahay waxaad arkaysaa dhalinyaradu dhibaatada ay qabto marka waxa weeye dad saa u dhibaatoonay may doonayaan maaragtay inay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waan gartay maaragtay u sii hayo madasha xagga dhaqaalaha haddaan u soo laabano waxa weeye waxa la oran karaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxyo waaweyn oo maaragtay hadday ku tahay maaragtay shamadfarkii Djibouti hadday ku tahay boorarka wax waa la qabtay laakiinse dhaqaalihii hoose kooraankii biyihii waxa weeyaan cunadii dadka iyo maaragtay nolol maalmeedkii dadka ayaa baaba'day marka dhaqaale waaweyn oo la dhiso waxba kuma taalo aad baad u mahadsan tahay maxamuud jaamaca oo idaacadda codka Djibouti ee Faransiiska ku taala ka tirsan waad matantiin walaal isla wararkii Djibouti ayaynu ku jirnay dadka naafada ah ee u diiwaan gashan wadanka waa 5% u baahan inay helaan daryeel dheeri ah si ay uga qayb galaan doorashada wariyahana dalka Djibouti Maxamuud Bulxan ayaa eegaya baahida gaarka ah iyo caqabadaha ay la kulmi karaan marka ay barito tagayaan goobaha codbixinta waa qaar ka tirsan dadka naafada ee dalka Djibouti oo tir ahaan gaaraya 5% guud ahaan dadka dalka oo dhan shacabka Djibouti ayaa maalinta Khamiista u dareeri doona goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan balse maxay tahay caqabadaha gaarka ah ee bulshooyinkan ay tirsanayaan dadkeenu waa dad runtii u nugul mar walba inay gargaaraan qof kasta oo gargaar u baahan marka waxa dadkaasi baahida gaar kale kulleyba meel in laga badbaadin doono safafkaasi dhaadheer qorshaha uu ku jira runtii anigu dadka araggu ka maqan yahay waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaan tababar yar oo kooban aan u sameeyo application inta teknolojiyadda adeegsata amba telefoonada maaragtay iPhone-ka oo kale adeegsanaysa inaan application yar oo gaara oo isagu warqadii qofku marka uu dul dhigo sheegi karta warqadani qof kale dhanka kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka ayaa sheegay inay dhageysan doonaan baaqa dadka baahida gaarka qaba codsiga waa muhiim oo aad bay raggaasi maadaama ragga baahida gaarka qaba inay iyagana hawshooda waxay ka dhigan tahay nidaamka waxay ku jirtaa equity-ga la yiraahdo qofku waxa ka maqan in loo buuxiyo marka anigu horta waxaan de nidaamka diyaaritaanka waa wasaaradda gudaha laakiin anigu ka daba tag inaan iyo kormeerka iyo inaan eegno oo control ku sameeyno
insha allah waan rajaynaynaa iyagana wixii u sahli kara si ay u codeeyaan in loogu talagalo wasaaradda gudahana waan u sheegno way samaynayaan marka insha allah de waa loo nin walba hawshiisa wixii ka maqan waa loo buuxin inkastoo gudoomiyuhu sheegay in la dhageysan doono baaqa dadka naafada ah ayna doonayaan in noloshooda wax laga bedelo si ay matalaad weyn ugu dhexelaan bulshada dhexdooda balse ma hirgeli doontaa ballanqaadyada la carabaabay. Maxamuud Cusmaan Bulxaan, BBC, Djibouti. markana wararka ciyaaraha ee caawa horyaalka waa Champions League Chelsea iyo naadiga Portugiiska ee Porto ayaa is arkaya caawa ciyaarta oo lagu waday inay naadiga Portugiiska marti loo noqdo ayaa lagu dheelaya caawa Spain sabab la xiriira xanibaado xagga fayraska corona. ciyaarta kale caawa dhacaysa waa Bayern Munich oo la kulmaysa PSG. shalayna Champions League naadiga 6 jeer guuleystay Liverpool ayaa 3-1 looga badiyay Real Madrid lugtii koowaad wareegga 8 ku jirta ayaa ka adkaatay balse waxa xiiso lahayd ciyaartii Itixaad ee Manchester City daqiiqadii ugu dambeysay ka guuleysatay Borussia Dortmund. markana waxaan idin haynaa ubax Jabaaniiska ee quruxda badan oo si wanaagsan u soo baxaya xilligan isagoo soo hormaray waxaana lagu sifeeyay taasi inay ka timid xagga cimilada. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena caawiya caalamka nabadgelyo. Thank you.